السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد اتم جرافيكس ولي waxaa ku guda jirnaa qaybta tips and tricks ki software-da Adobe Photoshop Adobe Illustrator wali waxaa ku guda jirnaa Adobe Illustrator waxaan rabnaa sida loo sameeyo inaan ku baro different color waxaan loo hadda isla arki doonaa ko waxaan noo soo qaadaa shape inta aad cabirka aad ka soo dhigo marka intaan aan sameeysan kadib waxaa soo qoran doonaa qoraal waxaa ku soo qoran doonaa atom graphics anaga inoogu qor markaas aan ugu qorno qoraalka kalarkiisa cadaan ka dhig marka qoraalkan u jeedid shape-ka marka la dul saaro laga ma dhax arkay marka waxa rabaa shape-ka meesha qoraalka ka dul saarabo in laga dhax arko sidaas u sameeyno waxa dooraneynaa shape-kan kadib waxa tageynaa qaybta transparency ku qoran tahay marka soo furno qaybta mood-ka oo normal ku ah soo fur waxa ka dhigtaa difference marka ka dhigto kan waxa sameeynaysaa right click arrange aadhe bring to front aadhe meesha uu koraysa keenay yani asaa ugu kormarsiinay kadib marka keentay soo wajeedid meesha ka saartidbo color kale u yeela soo wajeedid marka ka qaado qoraalka cadaankiisu ahaana laakiin marka soo dul saar meesha ka soo saaro soo wajeedid wuxuu ka dhigaa colorkaas marka waxa rajaynaynaa wax badan ka fahantay qaybta la dhaho different color ku soo dhawaato graphics hadaan ugu cusubtaana soo follow garay hadaa hore noola joogto muuqaadeen like dhaasina share garay si asxaab badan adoo kale uga faa'iideystaan oo mahadsantahay